xalay inta badan dalalka khaliijka waxay la kulmeen weerarkii ugu xoogganaa oo mar kale kaga yimid dhanka iyo dowladda iiraan. maxaa xalay dhacay? gantaalka khaybar iyo khasaaraha uu geystay, goobaha ay dowladda iiraan ay ku bartilmaamaysatay gantaalkan iyo mawjadaha diyaaradaha daroniska, khaliijka oo bilaabay ka fiirsashada maalgelinta maraykanka iyo dalalka dibadda ay ku samaynayaan, waa kuway dowladaha hadda bilaabay inay arrintan ay si weyn ay kaga fakeraan iyo saldhigyada maraykanka uu gobolka uu ku leeyahay. maxaana ka dhalan karaya haddii go'aan ay dowladaha khaliijka ay qaataan? maraykanka miyuu caawimaad ka heli doonaa dowladda ukrain? waa maxay caawimaadda ukrain maraykanka uga baahan yahay? waana maxay riyada 40 sano jirsatay ee ra'iisul wasaare netanyahu? maxay la kulmeen iiraaniyiinta saacadihii la soo dhaafay? ku soo dhowaada barnaamijkeenna maanta. waa maalin jimcaha 6 bisha maarch sanadka 2026. u diyaargaro inaad daawato macluumaadyadaasi oo dhammaystiran. ha ilmaamin inaad akhriso maanta oo kale suuratulkaafi oo aad badiso xuska nebigeenna moxamed, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. aan ducaysanno una ducayno guud ahaan dadkeenna iyo dalkeenna. aan ku hormaro, saacadihii la soo dhaafay waxaa qaar ka mid a dowladaha khaliijka mar kale ay martigeliyeen gantaallo badan iyo diyaarado daroonis ah oo ka yimid dhanka iyo dowladda iiraan. xalay habeen kale ayay u ahayd dowladaha kuweyt, baxrayn, sacuudiga, imaaraadka iyo sidoo kale qatar. haddii aan ku hormaro dhanka iyo dalka kuweyt, sawirada iyo muuqaalada lasoo bandhiga ayaa muujinaya dab xooggan oo ka kacay mid ka mid ah saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay gudaha dalka kuweyt, gaar ahaan saldhigga lagu magacaabo cali al saalim oo ku yaala dalkaasi kuweyt. sawiradu waxay muujinayaan in dabka uu qabsaday meel ku dhow halka lagu kaydiyo shidaalka. sidoo kale waxaa suuragal ah in la bartilmaamaysaday halka lagu qaray diyaaradaha iyo goob lagu kaydinayay qalabka noocyadiisa kala duwan oo ay isticmaalayeen ciidanka maraykanka. uura xooggan ayaa cirka isku shareertay, holacana waa la arkayey. sidoo kale waxaa la bartilmaamaysaday xalay oo gantaalada ugu badan ay ku dhaceen bartamaha israa'iil. muuqaalada lasoo bandhigayna waxay muujinayaan gantaallo markay ku soo dhowaadaan bartilmaameedka madaxyada qaybsanaya. holaca, burburka iyo qayladhaanta ayaa qaybo badan oo ka mid ah bartamaha israa'iil isqabsatay. nidaamka digniintana ilaa iminka waa uu qaylinayaa, iyadoo laga baqayo saacad kasta in iiraan weerar kale uu ka imaan karayo. sheekada halkaa kuma koobna burburka xooggan ee lasoo bandhigay ayaa muujinaya khasaaraha ka dhashay ama ay sababeen gantaaladii dowladda iiraan ee xalay ay ku weerartay gudaha israa'iil. mawjado gantaallo ah iyo diyaarado daroonisa ayaa labada dhinac looga weeraray israa'iil marka adeegta dhanka xisbullah iyo sidoo kale dhanka dowladda iiraan. telefishinka aljaziira iyo warbaahinta ayaa baahinaya muuqaalada muujinaya xalay iyo talaabiib waxyaabaha qabsaday dab weyn oo ka kacay bartamaha magaalada talaabiib, taasi oo kordhisay khasaaraha guud ee ka dhashay duqaymihii xalay ee iiraan ay ku garaacday gudaha israa'iil. khasaarahan waxaa la sheegay inuu naf iyo maalba leeyahay, inkastoo ilaa iminka faahfaahin rasmi ah aan laga hayn. mawjadii 20aad oo weerara ayay iiraan ku tilmaamtay inay xalay ay ku weerareen magaalooyin ka tirsan gudaha israa'iil iyagoo adeegsanaya dhowr nooc oo gantaallo ah. sida la sheegayna waxaa kulmay gantaalada nooca khaybar la yidhaahdo oo dhanka iiraan ka yimid iyo gantaalada ay adeegsadaan xoogaga xisbullah oo salvos lagu magacaabo. muddo 1 saac iyo bar ayaa la sheegay si isku mid a in loo bartilmaamaysaday magaalada talaabiib iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha israa'iil. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan waxay sheegeen mawjada 20aad oo ka mid a ballanqaadka afraad inay ka mid ahayd mawjadihii ugu cuslaa oo israa'iiliyiinta ay la kulmeen. waa maxay gantaalada xalay ee dowladda iiraan ay adeegsatay? iiraan taliska ciidamada ilaalada kacaanka ayaa si cad u sheegay inay isticmaaleen gantaalka nooca khaybar la yidhaahdo. waa mid ka mid a gantaalada ay iiraaniyiinta sida weyn ay ugu faanaan. aan kula wadaago macluumaad gantaalkani ku saabsan. gantaalkan waa mid balaastiig ah oo ridada dhexe ah. waxaa la sheegaa in ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ay soo bandhigeen sanadkii 2022. astaamaha u gaarka ah waxaa ka mid ah inuu gaari karayo 1450 kilomitir. madaxiisu waxaa la sheegay inuu yahay mid dhaqdhaqaaqi karaya, waxaana taasi u saamaxaysaa inuu ka baxsado nidaamyada difaac ee dhanka hawada. iiraan markii ugu horreysay gantaalkan waxay ku weerartay israa'iil intii lagu guda jiray dagaalkii 12aad ee bishii juun sanadkiina dhaafay 2025. aljaziira waxay soo bandhigaysaa muuqaalada muujinaya marka 3 mawjadood ee gantaalaha inay ku dhaceen muddo nus saac ka badan gudaha magaalada talaabiib oo caasimadda israa'iila iyo magaalooyin kale. dhacdooyinkan oo idil marka waxay ku soo beegmayaan xilli taliska difaaca ciidamada israa'iil ay ku dhawaaqeen in la yareeyey gantaaladii ka imaanaya dhanka iyo iiraan, islamarkaana la burburiyey xarumo dhowr ah. arrintan marka waxay su'aalay dhex dhigtay israa'iiliyiinta dhexdooda oo ah
in khatarta ka imaanaysa iiraan dhab ahaantii weli aysan hoos u dhicin oo ay taagan tahay. taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in duqeymihii ugu dambeeyay oo ay fulinayeen ciidamada Israa'iil inay hoos u dhigeen gantaaladii ka imaanaya dhanka iyo dowladda Iiraan. Laakiin tani mar kale waxay beeninaysaa macluumaadka ay warbaahinta Israa'iil ay baahinayso iyagoo taliyayaasha ka soo xiganaya. mar haddii xalay weerarka intaan la eg Iiraan ay qaaday maxaa ka dhashay? waxa ka dhashay waa berigii maanta in la diiwaan geliyo duqeymihii ugu cuslaa oo ay la kulmaan Tehraan iyo sidoo kale magaalada Beirut oo caasimadda dalka Lubnaan ah. xaafadda Daaxiya oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beirut ayaa gantaalada ugu badan ay ku dhaceen saacadihii la soo dhaafay, waxaana Bezalel Smotrich wasiirka maaliyadda Israa'iil uu ku hanjabay in Daaxiya iyo xaafadaha kale ee magaalada Beirut ay ka dhigi doonaan sida Qaanyoonis oo kale. magaalada Tehraan haddii aan eegno mar kale Maraykanka ayaa u baahday in la soo dhaqaajiyo diyaaradda loo yaqaano B2, waa mid ka mid ah diyaaradaha duqeymaha ugu culus fulin karaya. waxaa la sheegay in lagu bartilmaamaysaday dhismayaasha dhulka hoostiisa oo suuragal ay tahay in gantaalada ay ku qarinayso dowladda Iiraan, iyaga oo sheegay in ay kaashanayaan macluumaadka dhanka sirdoon ay ka helayaan saaxiibadooda gobolka. diyaaraddan waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu culus oo markii saddexaad Maraykanka uu isticmaalayo tan iyo dagaalka markii uu bilowday. sidoo kalena waxaa Maraykanka uu ku faanay in ka badan 30 maraakiib ah inay ka qoosiyeen dowladda Iiraan tan iyo dagaalka markii uu bilowday. taliyaha taliska dhexe ciidamada Maraykanka ee CENTCOM loo yaqaano ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. madaxweynaha dowladda Maraykanka xalay ayuu isna warbaahinta la hadlay kadib munaasabad lagu qabtay aqalka cad ee dalka Maraykanka. bilowgii madaxweynaha ayaa wuxuu ka dalbaday saaxiibadiisa ku hareeraysan in loo duceeyo, markii dambena waa loo duceeyay sida ay warbaahintuba ay baahinayso. wixii markaa ka dambeeyay marka wuxuu ka hadlay arinta maamulka Iiraan iyo sida ay doonayaan iyo in Ayatollah Khamenei wiilkiisa gabihaan ay ka soo horjeedaan iyo dagaalka inuu sii socon doono. maxaa ka dhashay sidoo kale duqeyntii xalay? sida taliska dhexe ciidamada Maraykanka ay sheegeen waxay bartilmaamaysadeen markab diyaaradaha drone qaado oo Iiraan ay leedahay. markabkaas oo ay sheegeen inay gantaale ay ku beegsadeen isla markaana gabiyahaanba la quusiyey. maalintii Arbacada ee la soo dhaafay ayaa markab dagaal oo Iiraan ay leedahay waxaa lagu beegsaday xeebaha dalka Sri Lanka. markabkan oo Iris Dana lagu magacaabo waxaa ku geeriyooday ilaa iyo 84 badmaaxiin ah. sidoo kale qaarkood ayaa dhaawacyo ay soo gaareen halka qaarkoodna la weysan yahay. Maraykanka wuxuu wadarta guud ee maraakiibta Iiraan uu ka beegsaday ku tilmaamay ilaa iyo 30. duqeyntii xalay waa maxay natiijada kale ee ka dhalatay? sida dowladda Qatar ay ku dhawaaqday gabi ahaanba waxaa agagaarka safaaradda Maraykanka ee magaalada Dooxa laga daadguraynaya muwaadiniinta dalka Qatar iyo kuwa kaleba si aysan waxyeello u soo gaarin. saacadihii ugu dambeeyay waxaad moodaa in Iiraan ay laba jibaartay duqeymaha ay ku beegsanayso saldhigyada Maraykanka, xarumaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta iyo goob kasta oo lagu tuhmayo danaha Maraykanka ee dhanka gobolka. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha arrimahan. kulamo kale oo degdeg ah ayaa socda oo u dhexeeya dowladaha Khaliijka. sidoo kale waxaa soconaya dadaallo la doonayo in arrintan xal loogu helo, laakiin Iiraan ayaa weli diidan in miiska wada hadalka ay timaado iyada oo ka baqanaysa in mar kale la qiyaano. sida uu baahiyay wargeyska Financial Times, dowladaha Khaliijka qaarkood sida Sacuudiga, Imaaraadka, Kuwait iyo Qatar waxay ka fikirayaan inay dib u eegis ay ku sameeyaan maalgelinta inta badan ay ku sameeyaan Maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka, sabab la xiriirta culayska dhaqaale ee ka dhasha dagaalka iminka soconaya ee Iiraan lagula jiro. sida uu daabacay wargeyska Financial Times, waxay ka fikirayaan in ay ugu yaraan difaacyadooda iyo ciidankooda ay maalgelin xooggan ay ku sameeyaan halkii ay dhaqaale badan ay ku maalgelin lahaayeen Maraykanka. warbixinta nuxurkeeda markaad eegto marka waxay ka hadlaysaa cadaadiska dhaqaale iyo kan siyaasadeed ay la kulmeen dalalka Khaliijka tan iyo dagaalka markii uu bilowday. waxaana halkan ay ka fahmayaan maalgelintii tirada badneed ee ay sameeyeen iyo sidoo kale hubkii ay soo iibsadeen kana iibsadeen Maraykanka iyo heshiisyadii hore loo gaaray ee difaacidda dalalka Khaliijka inaanay waxba ka faa'iidin. warbixinta wargeyskani uu daabacay inkastoo dowladaha Khaliijka si rasmi ah looga soo xigan macluumaadkan iyagana aysan ka hadleen, waxaa la isweydiinayaa ma runba mise waa in la cadeeyo in laga warhayo dowladaha Khaliijka iyo qaabka ay u fakarayaan iyo wada hadaladoodii ugu dambeeyay. maxaana keenay waqti xaadirkan inay arrintan ama tallaabadan ay qaadaan? ma Maraykanka ayay ka waayeen wixii ay ka filayeen kadib dagaalkan oo la isku bartay cidda number 1 u ah Maraykanka uu difaacayo marka la joogo gobolka Bariga Dhexe? ma waxaa dhab ah shakiga dowladda Iiraan ay abuurtay oo in duqeymaha qaar ay ka dambeeyeen dhinacyo kale, taas oo kale shakiga sii xoojisay? tanina bilow ma u noqon doontaa dagaal mar kale Khaliijka iyo Maraykanka dhex mara oo suuragal ma noqonaysaa inaan aragno qaybta labaad ee kacdoonkii Carabta, kaas oo boqorada Carabta suuragal ay tahay in lagu kiciyo
dadyowga ay xukumayaan haddii maraykanka danihiisa uu ka waayo qaar ka mida dowladaha khaliijka. tanina sidoo kale fursad muu noqon doontaa oo albaabada muu u furi doontaa ruushka iyo shiinaha si ugu yaraan kalsooni ay u abuuraan oo ay xiriir wanaagsan ula sameeyaan qaar ka mida dowladaha khaliijka. miyayna tani sii fogeyn doontaa in dowlado badan ay ku dhiiradaan ka qaybgalka heshiiska abraham accord? waa su'aalaha la isweydiinayo saacadihii ugu dambeeyey. in dowladaha khaliijka hadda ay bilaabaan ka fikiridda maalgelinta xooggan ay ku samaynayaan maraykanka iyo dalalka reer galbeedka waxay sii xoogaysatay markii ay dareemeen in dagaal xooggan lagu soo qaaday dhaqaalahooda ama ugu yaraan shidaalkii tirada badnaa ee ay dhaqaalaha badan ka samaynayeen dowladahani. dadka qaarkii waxay aaminsan yihin wixii ka dambeeyey dagaalkii venezuela in dhabarka loo jeediyo dowladaha khaliijka, dagaalkanina uu bilow u yahay wiiqidda awoodda dowladaha carabta oo keliya duulaan aana lagu ahayn iiraan oo keliya. falanqayn iyo warbixin dheer oo arrintaani ku saabsan saamaynta ay yeelan karto iyo macluumaad kale insha allah barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagaya. laakiin aan kula wadaago warbixin warbaahinta raashka ee daabacday oo ciwaan looga dhigay sidee ayay dowladda iiraan ugu suuro gashay hub jaban inay kula tartanto hubka culus ee maraykanka iyo israa'iil. iiraan waxay lumisay qayb badan oo ka mid ah nidaamkeedii difaaca hawada, laakiin waxay haysataa hub dagaal oo muhiim ah. halka gantaal kasta oo laga soo rido nidaam difaaciidka Patriot loo yaqaano oo lacag badan uu ku kacayo oo malaayiin dollar ah. diyaaradahan duuliyaha layn ee dowladda iiraan ee jaban ayaa sababaya in baqaarada hubka ee maraykanka, israa'iil iyo dalalka khaliijka si degdeg ay u dhammaadaan. maxaa yeelay iiraan diyaaraddeeda daroon ee ugu qaalisan ay weerarka ku qaadayso waa ilaa $30,000, laakiin halka gantaal ee la doonayo diyaaraddaasi in lagu soo rido markay ugu yartahay waa $1 milyan. bal ay khasaaraha tani waxay awood ay siinaysaa marka dowladda iiraan si ay kaga hortagto isbahaysiga ballaaran ee dagaalka kula jiro. sidaa daraaddeed waxay si degdega ugu wareegaysaa xeelada cusub oo ku sallaysan daalinta ama difaaca ku dhisan isticmaalka hub yar. si looga hortago hubkaasina waa in la adeegsadaa gantaalo aad u badan. ujeeddadu marka waxay tahay in dhaqaale ahaan aad loo daaliyo israa'iil, ciidamada maraykanka iyo nidaamyada difaaca ee xulafada gobolka sidaas oo kale laga bilaabo baxrayn, qatar, imaaraadka iyo sacuudiga. istaraatiijiyadan daalinta marka waxaa lagu fuliyaa hub aad u jaban si loogu qasbo cadowga inuu isticmaalo cadowga hub aad qaali u ah. waana taasi midda keentay in baqaaradii hubka maraykanka ugu yaraan eber laga dareemo. waana taasi midda keentay in yacni sanadkii iyo maraykanka la weydiisto dhaqaale aad u tiro badan si hubkan lagu iibiyo ama hub loogu soo saaro. dhinaca kalena haddii aan kula wadaago ka waran sida wargeyska alcarabiya ama telefishinka alcarabiya uu baahiyey, maraykanka ayaa Ukraine waxay ka dalbatay caawin. maxaa laga caawinaya? waxaa laga caawinayaa khibradda ay u leedahay Iiraan iyo diyaaradaheeda in la iska difaaco inay la wadaagto ama ugu yaraan ay qayb ay ka noqoto sidii Iiraan dagaalkeeda ugu soo biiri lahayd. madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sidaas shalay sheegay, inkastoo ay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maraykanka arrintaasi ay si weyn kaga caroodeen. waxayna weydiisteen buu yiri khibradaan u leenahay diyaaradaha drone ee kamikaze iyo diyaaradaha kale inaan ka hortagno. laakiin Ukraine maxay isticmaalaysaa? waxay isticmaalaysaa hubkii reer galbeedka. sidaa daraaddeed hubkaasi oo Jarmalka oo Faransiiska leh oo Ingiriiska leh oo Maraykanka leh dhammaan hubkaasi waa u yaallaa gobolka, si gaar ahneed ee biyaha Mediterranean-ka iyo Israa'iil iyo dalalka khaliijka. marka maxay kula tahay Ukraine wax la weydiin karayo ama looga baahan karayo? dhinaca kale madaxweyne Trump oo telefishinka ABC la hadlay waxa uu shaacu ka qaaday in duqeymaha ka dhanka dowladda Iiraan ay soo gabagaboobayaan markii isaga uu go'aansado. Ilhaan Cumar oo ka mid ah sanadka Maraykankana waxay si weyn uga soo horjeesatay dhaqaalaha tirada badan oo maalin kasta la qasaarinayo. waxay tiri dagaalka dalka Iiraan maalintii canshuurta ay bixiyaan muwaadiniinta Maraykanka ayaa lagu qasaariya ku dhawaad $1 bilyan oo dollarka Maraykanka. sidaa daraaddeed waa inaan u codaynaa sidaan ula xisaabtami lahayn madaxweyne Donald Trump. sida wararku ay sheegayaan 4 maalmood ee ugu horeysay Maraykanka ayaa qasaaray in ka badan $11 bilyan oo dollarka Maraykanka, sida lagu baahiyay warbixintan oo lagu daabacay warbaahinta Russia Today, taasoo ka dhigan dagaalka haddii uu sii socdo qasaare xooggan inuu soo gaari karayo Maraykanka. haddii aan qaybta ugu dambaysa kula wadaago, waxaa jira maqaal aad u dheer oo telefishinka Aljazeera lagu daabacay kaasoo ciwaan looga dhigay riyada 40 sano jirsatay ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. maqaalka marka waxa uu leeyahay Netanyahu muddo 40 sano ayuu lahaa riyo siyaasadeed oo ah in Israa'iil ay noqoto awoodda ugu weyn ee gobolka Bariga Dhexe iyo in la daciifiyo ama la kala jibiyo quwadaha ka soo horjeeda Israa'iil, gaar ahaan Iiraan iyo dhaqdhaqaaqa ay taageerto ee Falastiiniyiinta iyo kooxaha hubeysan. dagaalka iyo xiisada ka socota Bariga Dhexe maanta marka waxay u muuqdaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo qorshahaasi sida maqaalka lagu sheegay. sidoo kale maqaalkan oo 2 ruux ay qoreen waxaa lagu yiri
taasi waxay noqon kartaa riyo ra-iisul wasaare netanyahu uu doonayo, laakiin qarow ama musiibo ayay u noqon kartaa dunida inteeda kale. qorshaha israa'iisha weyn ayaa maqaalkan inta badan diiradda lagu saaray. adigu maxay kula tahay qaybta hoos aragtidaada ku reeb laagsan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay.